Bismillahirrahmanirrahiim. Magacaygu waa Khalid Cabdi Kaaxnuug. Maanta waxaan halkan kusoo bandhigi doonaa casharkeenii 12aad haddii la idhaahdo. Maanta casharkan dhiganana magaciisa waxaa la idhahdaa balance sheet. Balance sheet waxay mid ka mid ah statementiskii ama waraaqihii aynu soo saarinay ee financial report-ka ahaa. Balance sheet-ka sideen hore soo wada ogsoonin waxaa loo ay statementada ka wada sinaayeen oo la qorayay intaa ugu horeysa taasoo ah inaad qorto magaca company-ga, taariikhda iyo warqadda magaceeda. Intaa kadib waxaad sameynaysaa balance sheet-ku waxay ku qotontaa qaacidada loo yaqaanay asset is equal liability plus capital. Waxaan nidhi asset is equal liability plus capital. Sidaa awgeed waa inaynu assetkeenu ama hantideenu ay leegataa liability-ga oo loo geeyay capital-ka waa inay leegataa assetkeena. Haddaba assetka waxaynu qoraynaa ama hantida waxaynu qoraynaa sida ay u kala isticmaal dhow yihiin: cash, account receivable, tools and equipment, land and building. Intaasi waa qaybta assetka ee aynu soo aragnay. Sidoo kale warqadan la yiraahdo balance sheet-ka waxa ay isku nooc u qormayaan warqadii hore ee soo marnay la odhan jiray trial balance meel yar bay kala duwan. Marka qaybta assetkeenu sidaas ay noqonaysaa, wax kale oo asset amaynan haysanin. Liability-ga waxaynu ku diiwaangelinaa account payables. Payables-ka waxa la isku dhahdaa account payable hadduu ahaa, note payable hadduu ahaa, waxaasoo dhan waa deymo lagu leeyahay. Waa liability payables baa la yiraahdaa 7,000 bartaa ku haysanaa. Sidoo kale waxaynu geenaynaa net income-ka iyo capital-kii ayaynu geenaynaa. Sidoo kale dadka qaar waxay sameeyaan capital-ka ayay isku daraan 8,800 bartaa ka dhigaan ayaynu ka dhigi lahayn oo statement-kan aynu ka soo qaadan lahayn net capital-ka ugu dambeeya. Marka inagu aan kala qaadnay net income intaasa iyo capital-ka intaasa ayaynu soo qaadanay iyo payables-ka intaas. Payables-ku waxa weeyaan waa note payable iyo account payable. 7,000 oo loo geeyay 1,800 oo loo geeyay 8,000 waxay noo soo baxaysaa 118,800. Sidoo kale qaybta assetka haddaynu eegno waa 18,800. Waxaa bartaa iyadu ay noqonaysaa waxa waa qaybta assetka. Qaybta liability-ga iyo capital-ka oo la sugayayna waa 18,800. waa inoo sax. Waxaana inoo cadaynaya labadiini qaybood debit and credit way isleeyihiin. Assetka waxaa lagu qorayaa debit-ka, liability-ga capital-kuna waxay galayaan credit-ka. Marka sidaas ay xisaabteenu sax ku tahay. Balance sheet-kii ku qotontay asset is equal liability plus capital-na way isleeyihiin. Marka markasta oo asset balance sheet-ka aad qorayso waxaad ugu horeysiinaysaa asset, waxaad soo kala horqaadaysaa si ay u kala isticmaal dhow yihiin. Waxaad ku xigsiinaysaa liability-gii, waxaad u geynaysaa capital-kii. Labada total ee liability-ga iyo capital-ku waa inay leegaadaan assetka totalkiisa. Sidaa awgeed warqadaada waxay soo bixi doontaa insha Allah totalka ugu dambeeya liability plus capital oo leeg assetka, ama asset is equal liability plus capital. Sidaas ayaan ku diyaarsanaanaysaa warqadda la yiraahdo balance sheet statement. saas ayaad ku diyaarinaysaa ama ku dhamaanaysaa xisaabteedii. waana sidaan hore soo sheegnay mid ka mid ah statementiska ama financial reportska waraaqaha ugu dambeeya xisaab xidhka ee la soo saaro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.